saacadaha soo socda waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan wafuud culus oo ka tirsan dawladda Turkiga si ay kulamo ula qaataan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. wafuudan Turkiga ah waxaa la sheegay in Muqdisho ay ku soo wajahayiin kulamo ay la qaadan doonaan mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda dhexe ee Soomaaliya si gaar ah madaxda dalka ugu sareysa. waxaa kale oo la sheegay in xubnaha mucaaradka ay la kulmi doonaan maalmihii la soo dhaafay. warar soo baxay ayaa sheegayay in Turkiga uu qayb ka noqonayo ama uu kaalin weyn ka qaadanayo isku soo dhaweynta xubnaha la magac baxay mucaaradka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya. wafuudan Turkiga ah ee Muqdisho ku soo wajahan ayaa la filayaa sida la sheegay in kulamo gaar ah ay la kala yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, xubnaha kale ee mucaaradka si la sheegay in la isugu soo dhaweeyo oo ay uga wada hadlaan arrimaha masiiriga ah iyo arrimaha ay isku hayaan. Turkiga mucaaradka ayaa dhowr siyaasi oo ka tirsan waxay hore ugu eedeeyeen inuu u janjeero dhanka dawladda dhexe ee Soomaaliya, sidoo kalena uu ku caawinayo in ay kala shaqeeyaan sii joogitaanka madaxda haatan joogta. balse Ankara ayaa maalmo ka hor inkirtay warkan, waxayna sheegtay in warkan uu yahay mid waxba kama jiraan ah. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga. Soomaalidana ay u siman tahay, Turkigana danaha Soomaaliya u jooga ay tahay inuu caawiyo dadka iyo dawladda Soomaaliyeed. hadda waxaa la sheegay inuu qaadanayo door lagu sheegay inay tahay dhexdhexaadin, taas oo la iskugu soo dhaweynayo madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo xubnaha kale ee mucaaradka oo maalmihii la soo dhaafay warar kala duwan isku marinayay warbaahinta gudaha iyo dibadda intaba. wixii warar ah ee soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu eebbeedmo.